Gudoomiyaha Gobolka Maroodi Jaamac Maxamed Cabdi ayaa Fariin adag u diray guud ahaan bulshada ku dhaqan Gobolka Maroodi oo ku aadan maalinta ciidda awgeed inay amniga ilaaliyaan sidoo kalena waxa uu Fariin u diray waalidiinta ku dhaqan Gobolka Maroodi oo kula dardaarmay inay maalinta ciidda awgeed ay caruurtooda si adag uga warhayaan waxaana bulshada ugu baaqay inay guud ahaan ilaaliyaan amniga qof kasta meesha uu joogo mas'uuliyad gaar ah oo saaro nabadgelyada guud ee dalkana qof waliba halka uu joogo uu ka ilaaliyo gaar ahaanna nabadgelyada dhalinyarada waalidiintu aad isaga xil saaraan dhibaatooyin badan baa dhaca munaasabadahan ciidda dhalinyaradu runtii farxad ay la talax tagta dibadda loo baxaa in la iska ilaaliyo macaasida iyo waxyaabaha runtii acmaash wanaagsanada ee soo sameynay inaga xumaynayeen in aad iyo aad looga feejigaado waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan sanadkiisa ay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo ummadda reer Soomaalilandna nabadgelyada ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu manaystay inaynu ilaahayna ugu mahadnaqno subxaanahu wa ta'aala haddii ilaahay u mahadnaqno uu inoo siyaadinayaa nabadgelyadeennana aynu ilaashano Axmed Khalid Farax Ariel TV Hargeysa